farmaajo nin ducaysana tahay aloo duliga ka dhor waxay dabeelka ma soo gashay daashka ku joogto duuga hada ma duugti waxaan iri sidii lagu doortay daruur roob aan oo daadi sidii lagu doortay doolarkana hoos u dhacay sidii lagu doortay inaad garab istaagtiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaankiisa iyo dhammaan ummadda diinta iyo dalka inaad garab istaagtiin maatada inaad garab istaagtiin diyaar muudin madaxweyne xafladan adiga ayaa si gaar ah lagu talagalay in lagu soo dhaweeyo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw waxaad ku soo dhawaataa ciidamada qalabka sida ee beesha Jareerweyne wajiyadooda ayaad ka arkaysaa waxay isugu jiraan dabley saraakiil janan ay nooc oo askari ay isugu jiraan waxayna diyaar u yihiin in ay wadanka xasiliyaan marka waxaan leeyahay mudan madaxweyne anigoo hadalka sii badinayna waxaad ku soo dhawaataa beesha Jareerweyne ciidankoodii walaalayaal diyaar mu unahay in aan la shaqeyno madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xibanta hadda darajada jeneraal sheego nasiya waxyaabaha aga tadulna golaha baarlamaanka ka mid ahayd haddana waxa muuqato generaalka in lagu go'doomiyo tuuladiisa muuqato wax caalamka qarsanna ma aha waxyaabaha taagan hadda aan rabno madaxweynaha inuu wax qabtay koo ka tahay waxaana la balan qaaday in aan leenahay laba xaalada golaha wasiirada golihii wasiirada xaaladoodiina ma muuqato annaga oo xildhibaanadii Hirshabeelle khaasatan xildhibaanada beelaha Jareerweyne oo isku duulaan waxaan u tagnay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan wax ka weydiinay xibintii gudoomiyaha wasiirka maaliyadda iyo wasiirka xigeenkii wasaaradda beelaha oo kaga tanadulnay xibintii kursigii gudoomiyaha baarlamaanka wax ka weydiinay wuxuu si cad noo yiri arintaas anaga ma qosayso wariga horeeyay waaye waxaan ku ogaay malaha waxaan sheegaynaa marka in xibnaha naftkooda ay mugdi ku jiraan maanta waan noo jeedaa shucuurta aan muujinayno annagoo cid ilaahay subxaanahu wa tacaala aan hayna ka baqaynin waxaan diyaar u nahay cudud military intay loo baahdo dawladda federaalka oo madaxweynaha inaga codsado waxaan diyaar u nahay inaan soo garab istaagno habeen iyo maalin intaba cudud military 10 kun hadda madaxweynaha inuu amro 10 kun oo beesha Jareerweyne hadduu yiraahdo hadda alla keeno waxaan diyaar u nahay inaan soo garab istaagi karno hal saac gudahooda aan ku keenan karno taasoo aan xaqi aan lahayn inaan maanta aan ka faa'iideysan aan diyaar u nahay aan heli doono madaxweynaha inuu naga ballan qaaday insha madaxweynaha oo ku soo dhaweynaa habeen iyo maalin oo ku garab taaganahay garabkaada ayaan nahay xil weyn ayaa ku saaran Soomaali badan baa ku fiirsanayso caalamka ku fiirsanayo masaakiintiina way ku danaynaysaa habeenkii aad waxaysantay lagu magacaabay mii magaalo maanta waxaan ku banaan bixinaa gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan tuuladiisa Tuwaarey gabar iyo wiil geesi lama hurdin habeenkii ilaa hadda waa la taagan yahay waxay dadkii meesha joogay qoomiyadda meesha ay go'aan ku gaareen meesha uu jaranka joogo habeen iyo maalin oo ku noqday lagu cariiri galiya xabsi baan ku jirnaa xabsigaas anigu ilaahay nama gelin bilaadan baan na geliyay anigoo gurigaygan iska joognayana lagu soo weeraray oo gurigaygan iska joogno waxna waa in laga qabo way dawladda aan u cabanay hadeen gaashaanigu sheegnay cid walba hadaan cidna soo garab saagnaan weyn hadda waxaan ka cusubinaynaa calanka aan suugaynay oo dalka aan suugaynay madaxay aan suugay inaad adigu tahay intaas ay Soomaaliya isku raac Soomaaliya